daawade inta aan bilaabin ka hor haddii aad ka mid tahay asxaabta ku xidhan kanaalka fadlan like saar muuqaalka si ay noogu noqoto dhiirigelin haddii aad ku cusub tahayna subscribe saaro nagu soo biir gambaleelkana furo si aad ula socotid muuqaalada cusub السلام عليكم wax yar ayay aamustay haddana way sii wadatay maalintii aad daaqada taagneed ayay tiri miyaadna maqlaysay wejiga najax ayay kor u eegtay dareen ayay ka weyday ishu way libiqsan weyday iska daa wax kaloo jawaab ayay soo celisay midii balaqaad sahray ayay ku tiri hooda ii ilaali deedna way ka dhaqaaqday sahre oo aan dhaqaaqin ayayna jaxlibidhay galab weeye nabdoon cirku waa madow baahsan mahiigaan la yaqaan ayaa kambaalo ku hooray diyaaradda qoyan ayaa dhulka soo kala jeexday najaxoo naxsan waa dhismihii soo gashay waa airboodkii dhulku waa mid cusub afku waa af qalaad dadku waa si kale way ka soo dhammaatay airboodkii waxay raadinaysaa yarkii loo soo tilmaamay indhahay ku dhex baadhay dadkii meesha soo taagnaa midiga ay ka bilowday iyadoo socota bidixa ay ku dhammaysay midabkiisa ka soocan afrikaanka kale ayaa soo jiitay markiiba alla waa isagii ay hoos u tidhi dhankiisay u dhaqaaqday mar kastoo ay u dhowaato waa uu sii ifayaa sanka soo qoran ayay aad u sii eegtay wejigiisa furan ayaa ay soo hor istaagtay isagaa kaga horreeyey najax sow ma tihid inta ay indhaha uga jawaabtay ayay codna u raacisay xasan sow ma aha waa la iskartay barasho wanaagsan ayaa uu ku yidhi mid qalbiga dhayda ay hoos u tidhi korna waxay ugu qaaday mid aad u wanaagsan walaal bun ma rabtaa ayuu weydiiyey waxaa doontay si ayay hoos u tidhi korna waxay ugu qaaday shaah baan cabbi doonaa way sii wada jeesteen hadal aan la maqlayn ayay sii rifaysaa ciil baa ka maruudha gadaasheeda najax waxay ku sii jeedaa nolol aanay ogayn halka ay ku dambayn baabuur yar oo cad ayuu xasan ku qaaday rajo ay dalkeeda kaga timide ayay dib u qooraansanaysaa marka ay ka soo dhaqaaqeen gegadii diyaaradda ee entebe waa run go'aan way ka gaadhay jacaylkii inanka madaxweynaha ee najax waa run nolosha way ka timiday wax kaloo ay ka timiday qayb iyada ka mid ah najax ma aha sidii ay ahaan jirtay ma aha qofkii safarka jeclayd ma aha qofkii dadka iyo barashadooda jeclayd xasan oo isku dayaya inuu uga faaloodo magaalada ay timid ayay hii ugu jawaabtaa hadalka ayay maqlaysaa haddana way ka baxaysaa way soo dawaaftaa maskaxdaa shaqaysa qalbigaa ilmeeya mar dambe ayay ku toostaa xasan oo leh deedna sidaas ayaa kambaalo loogu bixiyey haa wallaahi waa cajiib ayay iska tidhaahdaa su'aal ayay haye kaga jawaabtaa qalbiga laabteeda hoosteeda ku jira ayaa ka culus baabuurka ay saaran tahay way qaadi kari la'dahay in ay madhan tahay ayay dareemaysaa in ay wax weyne ka maqan yihiin ayay isku aragtaa indhaha ayay u lilisaa mugdiga iyo dhulka madow ee muraayadaha dhankeeda kale ka muuqda nolol cusub dad cusub iyo meel cusub malaha jacayl cusub macquul uma eeka saacad iyo 20 daqiiqo kadib ayay ku soo dhaceen jidka camiran ee malinga walow ay fii tahay haddana dadka ayaa sidii looga bartay jidka cidhiidhi ka dhigaya waa wada Soomaali dadka lugaynaya kuwa taagan iyo kuwa fadhiyaba meel kasta dhugdhugley ayaa taagan waa moote bakhaaro magacyo Soomaali leh ayaa kolba mid aan dhaafaynaa meesha ma Kampala mise waa Hargeysa xasan oo in muddo ah ka aamusan ayaa sharaxaad u bilaabay xaafadan waxaa la dhaahdaa Kisenyi waa xaafadda Soomaalida waa xaafadaadii indhaha ay la raacday dadka dhaafaya sahre iyo hooda ay ka dhex baadhay labadeedii garab asxaabtii ay la noolayd xasuusta ay dib u celisay makhaayadii ay bunka ka cabi jireen ayay ku noqotay codkii deganaa ee sahra ayay dhegaysatay hooda oo qaylinaysa ayaa ka dhex gashay way isu qosashay hoodo waa saaxiibadeed hoodo gabadhii ay u hibaysay ninkii ay jeclayd talow iminka maxay qabanaysaa miyay isguursadeen haddana way isla yaaban tahay maalin uunbay ka soo maqnayd waddooyinkii ilayska lahayd ayay ka soo dhammaatay kisenyi qaybaheeda mugdiga ah ayuu baabuurku ilays daciif ah waddada rafka ah ku iftiiminaya baabuurkii ayaa waddada bartankeeda istaagay hareeraha ayay eegtay way weyday wax nal ah oo baxaya soo deg walaal ayuu xasan ku yidhi iyadoo aan garanayn meesha loo socdo cagaha dhulka tuuraha leh ku hibaysay shandad weyn oo ay lahayd ayuu xasan la booday luuq ayuu daf yidhi way daba kacday dhowr jid oo cidhiidh ah ayuu ka laabay carruur da'doodu yar tahay bannaankana taagtaagana ayay sii dhaaftay orda hoyda ayay hoos u tidhi meel ay u hoydaan miyay haystaan muuji gurigu dhanka bari ayuu u jeedaa albaabka laga galo midabkiisa cagaarka ah waxaa kala gooya dilaac bartanka ah oo laga arki karo cidda gudaha joogta marka aad gasho waxaad dhex istaagaysaa daarad aan weynayn oo dusha bannaan musqul ayaa garabka midig kaa qabanaysa
qolka ku xiga waxaa degan Farduus iyo ninkeeda Cismaan oo isku cusub. Qolka yar ee soo haray dhanka bidixna ka yaala waxaa degan Nimco. Waa qolka ay Najax degi doonto. Dumarka oo daarada ku caweynaya ay Najax habeenkii timid. Farduus waa gabadh iska qosol badan. Dhawaan ay iskuursadeen ninkeeda Cismaan. Cismaan waxa uu ka yimid Norway, waxa uu u joogaa in uu iyada kaxeeyo, balse inta aanu noqon iyada ayuu 3 bilood la joogayaa. Ardo waa gabadha guriga kareysa, daahaan 40 ay wax yar kor u dhaaftay. Gabadh aan aad u dheerayn, xilib xoog leh. Waa qof degan balse gacan bir ah ku haysa maamulka. Way salaameen dhammaan. Nimco oo kitchenka ku maqnayd ayaa soo baxday, si diiran ayay u salaantay. Oo walaal, inaad saaka imanayso ayaan moodayay, ayay tiri. Najax way faraxday, waxay dareentay in la sugayay. Wajigeedii oo aan in muddo ah waa farxad ah laga dareemin ayaa dhalaalay. Kaalay walaal, aan qolka ku tusee. Waardi Xasanow u soo qaad inanta alaabta. Waa la hor kacay. Way daba kacday. Markii uu Xasan alaabtii dhigay ayuu Najax ku yiri, aniga haddaba waan fasaxanahay soo ma aha. Mar haddii aan Nimco kugu hubsaday waan nasan karaa. Haddii aad wax u baahato Nimco ayaa nambarkayga haysa, laakiin iyada haddii aad haysato ima baahanaysid. Way u mahad celisay, wuuna dhaqaaqay. Nimco ayaa isku soo hadheen. Dhankeeda ayay eegtay. Nimco da'deedu 20 ayay wax yar kor u dhaaftay sida Najax oo kale. 2 sano ayay magaaladan ku noolayd. Waxa ay la dhalatay 3 wiil iyo 3 hablood. Dhammaantood waxa ay joogaan caasimadda labaad ee Somaliland, magaalada Boorama, magaaladii ay ku dhalatay ay ku kortay. Waa gabadh da'deed ka weyn, taqaana sida dadka loola dhaqmo. Waa qofkii ay Najax u baahnayd, laakiin Najax dadkii way nacday. Cidna niyadu ma hayso. Maalmaha qaar hadal ay ku wareerin lahayd. Qosolkeedii dheeraana jaarka ayaa dhibsan lahaa, balse iminka qalbiga ayaa lala qaybsaday. Waa lagu dhex meedhanayaa. walow ay ku faraxsan tahay in ay nolol cusub bilaabayso, haddana waxay ka xun tahay in ay ka timid wax kasta oo iyada ka dhigayay iyada. way kala maqan tahay. Hadalku mar dambe ayuu soo gaarayaa. Walaal, kulley waa soo daashay, iska jiifsa sariirta, casho ayaan kuu keenaya. Markii ay Nimca baxday ayay naqas badan dib u qaadatay, soona celisay. Hareeraha ayay eegtay. Qol yar oo hal qof loogu talagalay, balse 2 sariirood lagu qasbay. 2 sariirood oo yaala labada dhinac oo iska soo horjeeda. Gidaarka waxaa ku dhegan sawir weyn oo ah qaaradda Afrika, bes wax kale ma yaalaan gidaarka qolka. Dhulka waxa cagaha iyo sibirka qabow u dhaxeeya sali yar oo ay cagtu marba dhinac u kaxaynayso. Gidaarka saddexaad waxaa soo yaala kabadh dharka way ku yara dhowaatay. Qayb dhar ah ayaa ka buuxa, qaybna way maran tahay. Shandadeedii cusleed ayay soo jiiday. Waxay damacday in ay dharka qaanadaha ku gurto, haddana way ka waasatay. Naf wax qabataa kuma jirto. Casho loo keenay ayay badh ka cuntay. Badhkii kalena kitchenka iyada oo u sii wada ayay Nimca ka qaaday. Orod iska seexo walaal, kulli waa daalantahay, way noo berri. Albaabka ayay soo ceshatay. Dhar ay saaka soo xidhatay ayay si degan isaga furtay, midba mar qaaday. Kuba dabacsanna way xidhatay. Sidii qolkeeda ayay dareentay. Qolkeedii ku dhex yaalay gurigoodii Hargeysa. Marka laga reebo in ay kun wax ku kala duwan yihiin labada qol, culays ayay xasuusta qolkeeda ka sii qaaday. Sariirtii ayay dul tagtay. Waxay isu diyaarisay in ay seexato, walow oo ay og tahay in aanay gam i doonin 4 saacadood ee soo socda. Marakaneeco ayay isku sii daysay. Dhanka gidaarka ayay u sii jeesatay. Jilbaha ayay soo laabatay. Gamcahana laabta ayay gashatay. Ilbiriqsiye kadib waxa ay dareentay sida ay ilintu u dul ordayso sankeeda, barkimadana u qoysay. Sidii xaashi yar oo kale ayay u dul taallaa sariirta. Markii ay indhaha kala qaaday, waa waagii koobaad ee ugu horreeyey, uguna bariyey dhul shisheeye. Gidaarka midabka cawlan ayaa markiiba xasuusiyey in aanay qolkeeda joogin, in aanay meesha gurigii hooyadeed ahayn. Jidhka oo garaacaya ayay ku war heshay. Maskaxda oo guuxaysa ayay la soo kacday. Intii ay hurdaba weyriyoonaysay, Najax ayay dhowr jeer guursatay. haddana hooda ayay dhowr jeer u guurisay. Najax madaxtooyada ayay dhowr subaxood ka soo toostay. Markii u dambaysay qol kambaale ku yaala ayay ku dhex toostay. daal badan ay dareemaysaa, sababtana ma garanayso. In ay iska jiifto ayay rabtaa. Maalintu degdeg ku dhaafto, gobolkuna dhaco. Ilayska maalinta ayay nacday. Cabsi ayaa haysa. Waxay ka cabsanaysana ma garanayso. Haddii aan lala yaabin waa iska jiifi lahayd maalinta oo dhan. Inta ay keligeed ahaato ayay rabtaa. In ay isla sheekaysato ayay doonaysaa. Waqti saa'id ah in ay u baahan tahay ayay dareemaysaa. Aniga oo sidan ah, sideen waxbarasho u bilaabi karaa? Waa su'aal aan lahayn cid uga jawaabta.
walow ay dad Soomaali ah la joogto haddana in ay ajnabi tahay ayay isku aragtaa wax kasta ayaa ku cusub dad cusub oo u baahan in la fahmo dabeecadahooda ma aha gurigii hooyaday dib ayay ugu noqotay qolkeedii ay keligeed lahayd waxay dareentay in aanu qol keli ah ahayn balse uu saaxiibkeeda koowaad ahaa waxay soo xasuusatay maalintii u dambeysay ee ay dhex taagnayd si ay nabadgelyo u tidhaahdana ay garan la'ayd sidii ay u dhex jiifi jirtay inta ay doonto marka ay doontana ay uga bixi jirtay qolkii ay dhexdiisa siday doonto ugu dhex qaylin jirtay uguna dhex ciyaari jirtay uguna dhex qosli jirtay uguna dhex ooyi jirtay waxay barbardhigtay sida ay uhinta isugu celinayso xalay si aan loo maqlin naqaskeeda iminka oo kale waxay u baahnayd in ay gurigii hooyada joogto ugu yaraan 2 bilood ku xidhnaato gudihiisa dhabtii hooyadeeda ay madaxa saari jirtay markii ay adduunyadu soo eegto ayay tabtay waan ku qasbanaa in aan soo dhaqaajiyo ayay gar isku siisay waa runteed maxay odhan lahayd hadda hooyo inankaanu isku magaca nahay ee madaxweynuhu dhalay ayaan jeclaaday isna sidoo kale markii aan guur isku afgaranay ayaan ogaaday in ay saaxiibaday hooda isaga jeclayd markaa meherkii sidaa ayaan u joojiyey may sidaas inay tidhaahdo waxaa uga fududayd in ay ka soo baxsato magaaladii ay jeclayd cid kastoo ay taqaanayna ay ka timaado iminka kambaalo ayay sariir yar oo bir ah dhinaceeda si kala dheer ugu fadhidaa noloshu sida ay sidan u noqotay ayay isweydiinaysaa waxaas oo dhan waxaa ka daran sidee ayay uga bixi doontaa waa su'aal ay ku tawaqday jawaabteeda markii dambena ay isku qancisay in aanay jawaabba lahayn xaaladda aan ku jiro aayar uun lagama baxo waxaas oo dhan wax ayaa ka horreeya waa inaan hooyo la hadlo u sheego in aan nabad qabo nimco ayay weydiisay meel ay ka wacday waalidkeedii telefoon ayay u dhiibtay si naxariisla noogu sheegtay in ay ka wici karto cidda ay doonto lambarkii oo ay dusha ka haysay ayay ka horraysiisay furihii dalka waanay dhegaysatay dhawaaqa baxaya in yar kadibna codkii qaboobaa ee hooye ayaa la hadlay waa cod marka uu dhagaha najax soo gaadhay indhaheeda ilbiya ah ka faruuray way isku daadatay baroorna qabsatay way u sharixi kari weyday sababta ay u ooynayso hooyadeed waxa ay u qaadatay in ay qalloonayso ilanteedu in ay wax u dheer yihiin najax uunbaa og hooyo hoodiya sahre igu kaa wareeriye maad la soo hadashid anaa la hadli hooyo ayay ugu soo koobtay wax yar kadibna way dhigtay wax yar ayay ka fikirtay labadooda markii ay indhuhu aragga isku yaaciyeen ayay ka booday mar aan sidan dhaamo ayaan la hadli doonaa ayay isku qancisay iminka hawl kale ayay sugaysa waa in aan jaamacaddii tego waraaqaheedii oo dhan ayay isku hagaajisatay iyadoo naftu qasbaysa ayay u baxday kambaale mugweyn nimco oo u noqotay garab ay u baahnayd ayaa wadda carro cas oo adkaatay tuuro kale waaweyna leh ayaa cagaheeda soo cadaadinaya dhanka sare qorax aad mooddo in ay cadhaysan tahay ayaa soo dhalaalinaysa wallow ay subax tahay haddana kulaylku waa mid uu duqsigu ka hadhgalay waxay dhex jireen badweyn dad ah dad qof waliba meel u socdo cidhiidhiga iyo kulaylka ayaa ka yeedhsiiyey walaal jaamacaddu intee ayay inoo jirtaa nimco oo 2 sanno ee ay magaalada joogtay la qabsatay deegaanka ayaa si fudud ugu jawaabtay iyada oo sacabka midig indhaha dushooda koofiyad uga dhigaysa ma dheera walaal waa ilaa 20 daqiiqo haddii aynu helno matuutuu dheeraynaya iyadoo aan fahmayn ayay haye ku soo koobtay najax ayaa la yaaban sida ay nimco dadka u wada garanayso qiyaastii qof kasta oo ka soo horbaxa way salaamaysaa islaanta guriga hor fadhida karoodhida iibinaya ciyaalka kubadda ciyaaraya dhammaan luuq kasta oo ay ka laabaan waxa ay dareemaysaa in la soo eegayo dadkuba iyada ay ku mashquulsan yihiin way yaaban tahay waa la eegaa iyaduna way eegtaa marka laga jeesan waaye ay iska jeesataa haddana qof kale oo eegaya ayay aragtaa way shikiday maxaa si ah